ambaqaadka geediga sida awrta loo raro heesaha u gaarka waxa lagu aloosaa magaceebaheeyo adniyo afwada jira. asalaamu calaykum ayeeye waa ayeeye cusube oo idinkala soo hadlaysa maanta cooking with ayeeyo waxaa shamsa huda iyo gabadhayda labadooda waxay iga codsadeen inaan bariis isku dhex karisa aan kariyo. bariiskii isku dhex kariska ahaa ayeeye markiisii hore waxaa lagu karin jiray hilib, laakiin maanta digaag ayaan inoogu karinaya. bariiskuna had iyo jeer aad wuxuu ugu sii fiican yahay markuu digaagu lafa leeyahay, laakiin wixii aan hayay baan maanta wax ku karinayaa waxa weeyaan digaag aan lafa lahayn. marka waxaan isticmaalayaa instant pot ama digsigan dhaqsaa wax ku karinayo oo in hadda halkan ka aragtaan waa kan digsigii off buu hadda saaran yahay. waxaa halkan inoo yaalana bariiskii oo waxaan karinayaa 2 koob oo bariisa, tamaandho xabuub oo aan shiiday, toon, kamsaro iyo basalbaar aan isku shiiday. marka toontu waa 3 xabo, basalbaartuna waxa weeyaan 2 xabadood madaxeed oo inta hoose inta buurane dambe kuma darin, waa madaxa sare un, iyo kamsarada oo xabadan aynu soo iibsanay xidhan 4 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan, digaagii hilibkii digaaga oo aan jarjaroon kuskuusay, basashaasoo xabad weyn oo basala. halkana waxaa igu jirta saliidii oo iyadu ah koobka measurementkiisa marka 4 meelood loo qaybiyo meel ahaan ama 3 qaado waaweyn. waxaa kale halkan ii yaala maraq digaagaas oo aan 3 koob oo maraq digaaga iyo koob biyo ayaan ku daraya. marka caadiyan 2 koob ee bariiska waxaan ku daraa 4 biyo. 4tii biyo ahayd baan kan 3 ka dhigtay, midna aan ka dhigtay biyihii. marka waynu daaraynaa, waxaynu ku bilaabaynaa saateedu waa taa hoose baan daaraynaa. waxay inoo samaynaysaa kolkaaba saateegii inaynu basashii iyo saliiddii iyo waxoogaa hilibka shiilo ayay inoo ogolaanaysaa. marka on wakaa yidhi wuxuu kale saarayaa markuu kululaado waxaan samaynayaa saliiddaan ku shubayaa, dabeedna saliiddii waxaan ku darayaa basasha. marka 2 second way dhammaadeen, saliiddii ayaan ku shuba. waxaan kale samayn kari lahaa de inaan sii daare, laakiin wix inaynu isla aragno ayaa fiican. so saliiddii waan ku shubay. waxaan ku xigsiinayaa basashii. marka basashu daraynaa digaaggii. markaynu digaaggii ku daro oo digaagu inoo yaraa casaado ayaynu xawaashiyadii ku daraynaa. marka intanaan inoo sheegay xawaashiyadii baanan idiin sheegin, caagadahan yaryar baan kusoo shubtay xawaashkii qiyaastii aan markaa ku dareeyayun. marka halkan waxaa ku jira khamuun, qaadada yaree teaspoonka haafkeed. marka qof walba suu xawaashka isagu intuu jecliyayba wax ku darsanaya, mogtahay anigu waa intii aan anigu isticmaalayay. halkanna waxaa ku jira hay, isaguna wuu shiidan yahay oo markuu kio waaweyn aad ku rido wuxuu sameeyaa afkuu dadka ka galgalaa, dadka qaar baan jeclayn. marka waa haylkiioo shiidan. kanna waxaa ku jira filfil. marka 3dooduba midkiiba waa malqacadda yaree teaspoonka la yidhaahdo ama malqacadda shaaha haafkeed. waxaynu kolkaa doonaynaa digaagu biyuu dhalayaa, moogtahay, oo de waa wax talaagada lagu gurayo digaageeni. ma joogno dhulkii isagiyo intaynu soo qabsano aynu naku gawracanayne aynu hore ka karsanayne. waxaynu joognaa dhul aad intaad soo iibiso talaagada
culuulinayso oo ku haynayso. marka hadda waxaan ku darayaa digaaggii. digsigu waxaa aan idin xasuusinayaa, digsigu waa digsi dee ku jira dabkii, marka isagu wuu iska dhex soconayaa markii aad wax ku walaaqayso. marka ha ilaabin inaad galaaf gashato oo istaado dabkii aad ila dabkaad ka tagtay aad gashato saad u qabato aanu kaaga ordin. marka waxaan samaynayaa, waxaan ku darayaa hamuuntii sidaynu uga saaro qofkii. hamuuntii hadhowta bariiskii wuxuu imaanayaa raashinkii oo wada udgoon oo xawaashkii oo dhan waynu ku daraynaa. bariiska yagayarana waa lagu daraa ama cloves qofba siduu u yaqaano. qorofalna waa lagu daraa oo ah cinnamonkii. hadda filfishii waan ku daraya. filfishu had iyo jeer hilibkii ama digaaggii u yaroo fiican bay siisaa. kulayl badan haddaadan doonayn oo basbaasna in yaroo filfishii udgoonkii waxyaabihii kale ayay ku raacaysaa. hadda digaaggii dheecaankii wayna uga baxay. waxaynu ku daraynaa qudaartii aan soo shiiday. marka kamsaradii iyo toontii iyo basalbaadkii oon isku shiiday. marka kanu qoyaan bay leedahay, ilaan waynu shiidnay soo in yaroo biyo ah ayaan ku daray. marka waxaan samaynayaa biyayowga hadhowto intaa yaree saayidkaana ka imaanaysaa kamsarada iyo lasoo shiiday ama tamaandha xabuubta lasoo shiiday ayaa waxaynu samaynaynaa, waynu ka yaraynaynaa biyaha in yar ayaynu ka yaraynaynaa biyaha caadiga aynu ku shubaynaa. dabani markii hore ilaa 4 koob baynu ku shubaynaa soo maaha. 3 dartood fax soo yiri. haylka waxaan jecelahay inuu bariiska galo, marka waan u dambaysiiyaa. marka hadda waxaan samaynayaa, ilaan digsigii Mr. Popkii wuxuu samaynayaa wuxuu isagaa inoo karinaya si dhaqso ah oo waa dhaqsaha waxaynu ugu xiisaynaynaa. waxaan samaynayaa hadda tamaandhooyinkii ayaan ku shubayaa. marka basashu waa 1 xabo weyn, tamaandha xabuubtuna waa 4 xabo, laakiin waxaan sameeyey 4 xabo makiinadaan mariyey. marka saasay ayay u noqotay liquid. iyadii baan ku darayaa. marka iyadiibaa waxay samaynaysaa bariiska way macaanaynaysaa. waxay kale samaynaysaa midabkiisii bay yara casuus ka dhigaysaa oo akhtarkii ama cagaarkii toon kamsarada iyo basalbaarka ayay naga duwaysaa. marka hadda dee waxaan ku daray maasha allah wuxuu soo noqonayaa maraq oo kale. waynu ku yara karinaynaa. waxaynu rabnaa inay isgasho iyadii tamaandhadii, xawaashkii iyo toontii. marka hadda udgoonkii kamsarada iyo xawaashkii iyo basashiyo shiilantay tiba kugu soo odhanaysa. bariiskeenu qof waliba waa rasabigiisuu samaystaa moogtahay. wixii caadiyan waa isku mid, laakiin way kala yara duwan yihiin. marka hadda waxaan ku darayaa hadda haylkii. waxwaashka keliya inoo harsan. markaan haylkii markaan ku daro waxaan ku darayaa bariiskii. dabaed bariiskii markaan ku daro waxaan ku shubayaa biyihii iyo maraq digaagii. deedna wuu isku dhan yahayba maasha allah. marka hadda waxaan inoogu darayaa bariiskii.
digsigan waxaynu ka filaynaa kolkaa inuu ka dhaqso bato wixii aynu wax ku karsan jiray. bariiskii baan ku shuba. bariiskeennii kolkaa wuxuu ahaa 2 koob. waan isku walaaqaynaa. walaaqana ka badin maayo bariisku inuu jajabo ma doonayno. hadda kolkaa waxaan inoogu darayaa waxa weeye haylkii iyo cusbadii iyo maraq digaaggii iyo biyihii. marka haylkii ayaan inoogu darayaa oo isaguna qaadadii yaray kaafkeeda. cusbadii oo cusbada badan ma jecli anigu, marka malqacadda yare teaspoonka mugeeda ayaan ka dhigay. cusbadiina waan ku daray. waxaan rabnaa inuu yaro shiilmo bariisku intaynaan qoyaanka ku darin. waxaan rabnaa inuu in yar kusoo jagacaleeyo. marka digsigan wuxuu u fiican yahay se waxyaaba badan oo aynu leenahay baanu samayn karaynin oo inaynu gaar aynu samaysana ay noqonaysaa. laakiin wuxuu ku fiican yahay markii hawlaha aad degdega aad u baahan waxyaabaha degdega u baahan tahay oo kale inaad ku karsato. hadda 3 koob ee maraq digaag ahayd ayaan ku shubayaa iyo anigaa ku shubay. waxaan kale ku shubayaa koobkii biyo ahaa oon in yar ka soo dhimay. len kuwii kalaan maraq wixii shiiday ayaa biyo yeeshay. marka halkaasay 4 koobaynu ku dareegnayna ku dhantahay. waxaad ka ilaalinaysaa kolkaa marka aad shiilayso inaanu digsigu kaaga dhigin. len basashii iyo wixii waxaynu doonaynay inoo shiilmaan. marka inuuna ku dhegin digsigu ayaad ka ilaalinaysaa. haddii ku dhego waad ka goynaysaa. waxaad isku daysaa inaad ka goyso. dabeed waxaynu samaynaynaa waan daboolayaa digsigii. jiq baan ka siinayaa. waan kansalgaraynayaa. daboolka kolkaa halkaa sare basha ku taalla ee qiiqu ka baxayo ayaad geynaysaa. dhinaca loogu talagalay qiiqu ka baxayo sealing baa ku taalla. dabeedna waxaynu riixaynaa pressure cooker. laweyno xinayo wuu adag yahay. 5 daqiiqo inuu saaray ma aragtaa horaan wuxugu karsada. marka plus iyo minuskaasaad riixaysaa intaad doonayso inaad geyso. 5 daqiiqo unbuu u baahan yahay. waa ka istaareeyda on 5 daqiiqo ka bacdi wuu inoo dhan yahay oo waa kala degaynaa bariiskii haddii la yidhi. ayay 5 mirir way dhammaatay. dabeed waxaan sameeyey digsigii baan qiiqii intaan meeshii ka qaaday baan qiiqii ka saaray ama steamkii dabkii. haddii kale dee waynu ku gubanaynaa. dabadeedna saxankii baan bariiskii wax qurux badan buu ila noqdo. saxan baan ku guray in dee qof cuni karo. kabaa yaro badan intii qof cuni kareen. marka waxaan sameeyey waxaan se ku dul daray oo ku yaro qurxiyey waxoogaa khudaara. halkana waxaan inoo saaray koob shaahoo bigaysa oo hadhowto laga daba cabbi karo bariiska markii la cuno. marka saan oo kale khudaartan yar waa ku qurxisuun. waxa weeye dabacase, sabiib, basal iyo barbarooni. marka basasha iyo dabacasaha iyo barbarooniga ayaan isku soo shiilay. sabiibtiina markaan dabka kasoo qaadan baan kusoo dhex daray iyada intaan maydhay. halkan waxaa inoo saaran shignigii oo ka samaysan xamar iyo basbaas akhtar iyo jeex yaroo liina. waxaad se kula cuni kartaa salad baad u samaysan kartaa. qofo wuxuu jecel yahay. marka digsiga wuxuu sameeyaayay waa hawshibuu ka dhigay wax yar oo fudud. intii aynu walaaqayna hore aynu saatay garaynayna khudaarta mooyaane wuxuu inaga qaatay waa 5 daqiiqo oo keliya. marka
markaad isku soo darto waqtigaagii 15 daqiiqo ka badan ma kuu gaadhayo mana ka yaraata mooyaane sidaa iyo nabadgelyo iyo bon appetit fadlan tafadal waa ayeeyo oo idinkala soo hadlaysaa cooking with ayeeyo alif la kordhebey alif la hoos dhebey alif la gooday alif la kordhebey alif lagu reeb alif la hoos dhebey yaa lagu reeb alif la gooday wow lagu reeb